madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo geeka reedan habeen baleeran ka soobi haana kumid ah hay'ado amniga dalka iyo agaasinka madaxtooyada qaranka wareegtaha kubadda xafiiska madaxweynaha iyo magacaabis iyo xilka qaadisba la ka soobe agaasimaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala iyo warbaahintan akhri wareegtadaasay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta waxa uu dib u habeyn ku sameeyay qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo maamulka madaxtooyada qaranka. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa magacaabis iyo xilka qaadis lagu sameeyay mas'uuliyiinta magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin. Dr. Aamine Saciid Cali waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka. Sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaashaanle dhexe Odawaa Yuusuf Raage oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto ayaa loo magacaabay inuu noqdo ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sareeyo guuto Cabdalla Maxamed Cabdalla waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Gaashaanle sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 8 2018 waxa uu madaxweynuhu u magacaabay Fahad Yaasiin inuu noqdo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Sareeyo guuto Saciid Axmed Kediya ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle sare Zakiya Axmed Xuseen oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle sare Xasan Nuur Colijoog ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed. Maxamed Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya way dhawaa